xaaladda wareer ah ayaa ka taagan magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uu hogaamiyay madaxweynaha maamulkaas Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo madaxweynaha rasmi ah ka dhamaaday 19 bishan balse baarlamaanka maamulkaas ayaa muddo kordhin hal sano ah ugu daray madaxweynaha taas oo ka careysiisay siyaasiyiinta mucaaradka ah Laftagareen ayaana waxa uu xalay u dabaaldegayay sanad guuridii afraad kadib markii loo doortay xilka madaxweynaha ee maamulkaas ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah sida doorashada iyo doodda mucaaradka ka soo horjeeda ugu horreyn wuxuu si adag ugu horrimid badbaadada Koonfur Galbeed oo shalay loogu dhawaaqay magaaladaasi ee xarunta gobolka Baay wuxuuna tilmaamay inuu ka xun yahay abaabulka qorshaha sidoo kalena wuxuu in aysan ka shaqayn karin badbaadada Koonfur Galbeed kuwa isku magacaabay ee ku nool magaalada Baydhabo Laftagareen ayaa shaaca ka qaaday in kuwa la magacaabay badbaadada Koonfur Galbeed loogu baahan yahay al-shabaab inay ka saaraan deegaanada maamulkaasi badbaadada Koonfur Galbeed waxa la yiraahdo ma jiraan badbaadada Koonfur Galbeed ninka raba shabaab ayaa haysta ha ka badbaadiyo ayuu yiri Laftagareen oo xalay ka hadlay munaasabada ugu dabaaldegay sanad guurida sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday arrinta muddo kordhinta ee u bilaabatay taasoo ay dood adag ay ka qabaan xubnaha mucaaradka ee jooga magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka ayaa ku dooday in arrintan ay tahay go'aanka baarlamaanka isla markaana kaliya uu ka laaban karo isla baarlamaanka mas'uuliyadda muddo kordhinta waxaa iskala baarlamaanka maalinta berita wixii ay baarlamaanka ka qabaan ayaan ka qabaa shalay habkii loo maray ayay u baahan tahay in loo maro haddii la rabo in la iska daayo buu yiri Laftagareen khudbadiis waxay ku soo aaday xilli xasaasi ah oo markaasi xaaladaha guud ee dalkana ay yihiin kuwa aad iskaga cakiran maadaama dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo dagaal adag ay kula jiraan ururka al-shabaab Koonfur Galbeed ayaa haatan wajahaysa xaalad cakiran oo ka dhalatay muranka hariyada doorashooyinka balse waxaa loo balansan yahay shirka dib u heshiisiinta uu iclaamiyay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka kaas oo ka dhacaya bisha January ee sanadka 2023 ee foodo in lagu soo hayda oo waliba lagu faano leeyahay anaga bixinay waana ku faa'iidnay haddana aan Koonfur Galbeed geeyno si aan ugu faa'iidno aadana waxna badbaadada Koonfur Galbeed wax leeyahay ma jiraan badbaadada Koonfur Galbeed ninka rabo Koonfur Galbeed shabaab haystay ka badbaadiyo furunta yuusan ka soo bixin Baydhabo imaanay ADBs iyo maatadan inta joogtay 1 milyan iyo 200 kun oo qof Baydhabo joogtay ayaga badbaado u baahan shabaab ay rabaan in laga badbaadiyo shabaab inta ka soo carartay qoriga hala soo dhax fariisanayay war banaanka u baa shabaab ka badbaadi hadaa xil rabti tuulada ugu horeysa marka qabatay loo soo noqo waxaan xilhaynaa bal ay ku diireynaa hadaa in raga maantay ya wixii aan hadda sheegay oo de processkii dawladnimada iyo doorashadii la soo galay nagu daariyay oo dheereeyay oo nacaybkaad aragtay abuuray oo dee waqtigii loogu talagalay hata aanan dhicin 1 sano iyo 5 bilood zaa'ida inay ku darsanto doorashada waxyaalaha sababay wey ninkii ka midka ahaa yaa ku faanaya wuxuu leeyahay shalay anaa keenay waa lagu faa'iiday maxaa laga faa'iiday doorashada dib bay u dhacday 10 magac baa la bixiyey mid uu musharaxan nahay badbaadaan nahay nasiibaan nahay finally doorashada dhacday ayadoo la daalay maxaa soo koray 1 sano iyo 5 bilood waqtigii baa ku sii darsamay wixii ayaga ahaa magacyada ayaga ahaa in inta loo soo horo inta loo keenay maashaan magacaas kama shaqeynayaan dadkan ayaga dhibaataysan ayaga xabsi ku jiro ayaga go'doon ah maanta badbaadada ay u baahan yihiin iyo midowga ay u baahan yihiin waa la dagaalanka shabaabka iyo in argagixisadan gacan la iska siiyo garbaha la isqabsado ninkii damiir leh ninkii damiir leh oo wax garanayo maanta inuu 750 kun oo qof oo qoys oo inta joogto oo tuulada ugu dhow kan ka soo baxay oo 10 kilomitir tahay oo intuu qori la soo dhax fariisto guriga uu ku soo dhax dhunto uu soo galo sarkaal hebel baan nahay kanaan nahay uu yiraahdo ceeb alayk shalayna adaynoona ka soo tagtay ceeb alayk Soomaalina maanta meesha ay marayso wixii ay haysatay inay haysato wixii kalena ay hore u socdo sababta keenaysana tii hadda idin sheegayo waa dalkan wuxuu u baahan yahay shabaab in laga badbaadiyo ninkii intaas wax ka badan wato sharci